بسم الله الرحمن الرحيم كلتو وعن وناكسن كسو دواada saaxiibayaal warka halku dhig news qodobadaad ku daawan doontaan waxa ugu daroon Uhuru Kenyatta oo soo jeediyay talo culus oo dhaqaalaha looga jaraya al-shabaab askar ka tirsan amisom oo ku dhaga beelay weerarada al-shabaab oo qalabka maqalka la gudoonsiyay Faarax Macalin oo shaaca ka qaaday sir culus oo ku saabsan ujeedka ciidamada Kenya ay u joogaan maamulka Jubbaland guddiga doorashooyinka Soomaaliya oo ilaa ay amar dambe laga mamnuucay deegaanada Puntland Yusuf Garaad Cumar oo taageeray mid ka mid ah maamulada Galmudug taliyaha militariga General Oduwa oo iska diiday warqad uga timid wasiirka maaliyadda iyo faahfaahinna ka soo baxaya qarax xooggan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho haddii aad ugu cusub tahay fadlan daawade subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino taariikhdu waxay tahay 6 bisha 2 Febraayo sanadka 2020 intaad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada daawadayaal siyaasiga Faarax Macalin ayaa shaaca ka qaaday qodobo aad u culus oo ku saabsan ujeedka ciidamada Kenya ay u joogaan gudaha Soomaaliya Faarax Macalin oo horey u ahaa gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Kenya ayaa ka hadlay dhaqdhaqaaqyada ay ciidamada Kenya ka wadaan gobolka Gedo Faarax Macalin ayaa ugu baaqay in si degdeg ah ciidamada Kenya ka tirsan howlgalka Midowga Afrika looga saaro gudaha Soomaaliya Faarax Macalin ayaa dawladda Kenya ku eedeeyay inay ku guul dareysatay sugidda amniga isagoo xusay in ardayda iyo macallimiinta Kenya ay dhibaato xoog leh kala kulmayaan weerarada al-shabaab ka fuliyaan gobolka ka tirsan Kenya waxa uu sheegay in aysan suurtagal ahayn in ciidamada Kenya oo ilaalin la amniga dalkooda ay nabad ilaalin u joogaan gudaha Soomaaliya Faarax ayaa tilmaamay in amniga dalka Kenya uu aad u liito marka loo fiiriyo 11 sano ka hor intaysan ciidamada Kenya gelin gudaha Soomaaliya arinta ugu xasaasisan oo uu sheegay Faarax Macalin ayaa ah in ujeedada ay ciidamada Kenya u joogaan Soomaaliya ay tahay sidii ay si sharci darro ah uga ganacsan lahaayeen dhuxusha iyo sokorta sidoo hadalka u dhigay dawladda Kenya ayuu sheegay in markii hore ay sheegtay in ujeedada ciidamadeeda u geynayso Soomaaliya ay tahay in lagu sugo amniga Kenya balse waxa uu xusay inay haatan arinta ka sii dartay oo amnigu faraha ka baxay hadalka Faarax Macalin ayaa ku soo aadaya xilli shalay dawladda Soomaaliya oo soo saartay qoraal ay ku sheegtay inay ka xuntahay faragelinta siyaasadeed iyo midda amni oo ay Kenya ka wado gudaha Soomaaliya qoraalka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in faragelinta Kenya ay ka wado Soomaaliya aysan u wanaagsaneyn xiriirka labada dal iyo midka shacabka ee walaalaha ah iyo xal u helidda mushkiladaha gobolka oo ay ka mid tahay la dagaalanka argagixisada danka kale madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa soo jeediyay talo dhaqaalaha looga jaraya al-shabaab madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa dawladda Soomaaliya u jeediyay talo ku aadan sidii dhaqaalaha looga jari lahaa kooxda al-shabaab mar uu ka hadlayay madasha Atlantic Council Kenyatta ayaa madasha ka sheegay in kooxaha xagjiriinta ah maleeshiyaadka iyo dambiilayaasha ay mar hore saameyn xun ku yeesheen xasiloonida iyo midnimada gobolka Uhuru ayaa si cad u sheegay in aan al-shabaab iyo kooxaha kale ee xagjiriinta ah aan marnaba laga guuleysan karin in laga jaro dhaqaalaha haddii aan si cad looga hortagin musuqmaasuqa iyo suuqa madow beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya ayuu ugu baaqay inay iska kaashadaan sidii loogu hortagi lahaa waxaastaba marinta taasoo u arko inay tahay wadada kaliya al-shabaab looga adkaan karo Uhuru ayaa si gaar ah ugu taliyay in laga hortago ganacsiga sharci darrada ah iyo midka suuqa madow ugu dambeyntii Uhuru ayaa sheegay in dhibaatada ka taagan Soomaaliya ay sabab u tahay dagaal diimeed ka socda dalka inkastoo san magacaabin cid gaar ah hadalka Uhuru Kenyatta ayaa ku soo aadayay xilli ay jirtay xiisad siyaasadeed u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya iyadoo shalay dawladda Soomaaliya ay soo saartay diinin ku aadan in Kenya joojiso faragelinta siyaasadeed iyo midda ciidan oo ay ka wado gudaha Soomaaliya gaar ahaan maamulka Jubbaland si gaar ah gobolka Gedo markaana Puntland guddiga doorashooyinka Soomaaliya ayaa ilaa amar dambe laga mamnuucay deegaanada Puntland gabi ahaanba maamul goboleedka Puntland ayaa maanta oo Khamiis ah albaabada u laabay xafiiska guddiga doorashooyinka dawladda federaalka oo ku lahaa magaalada Garowe ee caasimadda Puntland qoraal ka soo baxay xafiiska wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa lagu wargeliyay maamulka gobolka Nugaal
in wasaaradda ay xirtay xafiiska guddiga doorashooyinka dowladda federaalka Soomaaliya oo ku lahaa Garowe laga bilaabo maanta oo ku beegan 6 Febraayo 2020 qoraalka ayaa sidoo kale lagu wargeliyay dhammaan gudoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka Puntland in ilaa amar dambe guddiga doorashooyinka heer federaal aysan wax shaqo ka qaban karin gobolada iyo degmooyinka Puntland daawadayaal waa naga inta warkaad kala socoteen halku dhig news.